dowladda waddanka Shiinaha ayaa waxay u dabaaldegaysaa 70 guurada markii la aasaasay Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha bishii Oktoobar 1949 ayaa waxaa ku dhawaaqay aasaasihii Shiinaha ninkii lagu magacaabi jiray Mao Zedong. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee Tiananmen Square ee ku yaala magaalada caasimadda Beijing. ciidamada qalabka sida ee kala duwan ee Jamhuuriyadda Shiinaha ayaa halkaasi soo maray iyagoo qayb u socda. sidoo kale dowladda waddanka Shiinuhu waxa ay soo bandhigtay hub casri ah oo qaarkood ay sheegtay 30 daqiiqo inay ku gaari karaan gobollada Mareykanka. madaxweynaha waddanka Shiinaha Xi Jinping ayaa khudbad waxa uu ka jeediyey isla fagaarahaasi Tiananmen Square iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin kumanaan qof oo ka tirsan dowladdiisa iyo xisbiga hantiwadaagga ah ee waddankaasi maamula. waxa uu sheegay Shiinuhu inuu yahay awood weyn oo caalamku aanay liicin karin, waxaana uu sheegay in Shiinaha aan la iska hortaagi karin aragtiyihiisa dhinaca horumarka ee dunida. waxaa kaloo intaasi uu ku daray madaxweyne Xi in dowladda Shiinuhu ay markaasi ka soo dhex baxday oo ay ka dhex muuqato caalamka. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday arrinta ku saabsan Hong Kong oo in dhaweydba ay ka socdeen banaanbaxyo waaweyn oo qaarkood lagaga soo horjeedo siyaasadaha Shiinaha. waxaana uu sheegay dowladda Shiinuhu inay ka shaqaynayso sidii markaasi uu sii xoogaysan lahaa horumarka ka taagan jasiiradda Hong Kong. sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda Shiinuhu ay ku hawlan tahay sidii Hong Kong si rasmi ah loogu soo dari lahaa Shiinaha oo looga dhaqangelin lahaa dhammaan shuruucda iyo qawaaniinta dowladda Shiinaha. Shiinaha ayaa waxa uu yahay waddanka ugu dadka badan dunida, waxaana uu leeyahay awood koraysa oo dhaqaale iyo mid military, taasi oo saameyntiisa caalamka uu aad isugu ballaarinayo. waxa saldhiggii ugu horreeyay ee dibadda militarigiisu ay yeeshaan ayaa waxa uu ku leeyahay waddanka Jamhuuriyadda Djibouti ee ku yaala Geeska Afrika.